cudurrada ugu waaweyn ee da'yarta qurbaha ku koraysa waa ismuusiinta ay ismuusiinayaan inay waalidin ay know ay qof midaas adduunkoodana burburin karta aakhirada sidaa darteed aabbahan isagoo wiilkiisa ugu yeeraya islaamnimada iyo wiilku yiri waxba ii sheegin qof weyn baa badbaadin gaalnimo qisadan bismillahi walhamdulillah sallallahu ala sayyidina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh wa walaalkum sayd fadlan muuqaaladan like iyo follow-ga saaro share gareeya si aan khayrka u wadaago dhalinyarada qurbaha ku koraysa inta badan waxaad moodaa maadaama ay fahmahaystaan kula yar meelaha aadeen driver license ay qaateen luqadan ingiriiska ay si fiican uga hadlaan waxay moodayaan inay waalidiintu ka aqday badan ka garasho badan arrintaas runtii waxay burin kartaa adduunkooda iyo aakhirada sidaa darteed nabi nuux calayhi salaam wuxuu ahaa nabi isku dayay wiilkiisa inuu badbaadiyo daqiiqadihii u dambeeyay uu tawxiidka ugu yeero gaalnimo ka badbaado laakiin wiilkan dhalinyarada wuxuu ismoodiyey aabihii inuu ka aqoon badan gaalnimo nabi nuux 950 sano wuxuu ugu yeerayay aadamaha tawxiidka an icbudu allaha wattaquuhu wa atiicuun mar walba ugu yeero sida dhalinyaro badan hadda ay sameeyeen earpodka dhagaha u gashtaan ay huudkan isku qariyaan jacaluu asaabicahum fi aadanihim wastakhshaw thiyaabahum iyagoo kibriyay socdaan wasarru wastakbarba ugu dambayntii cadaabka ilaahay nabina wuxuu saaran yahay doon wiilkuna wuxuu joogaa dhulka ilaahay subxaanahu wa tacaala kor iyo hoos iyo cirif walba wuxuu ka keenay hirar isdaba sunaami sida ilaahay qur-aanka ku yidhi fafataxnaa abwaaba samaa'i bimaa meel loo baxsada ma jiro hirarku buurahay saa usoo dulmaraya markaasuu wiilkiis oo dhawaaqu ku yidhi yaa bunaya arkab macanaa walaka aabe wiilkaan jeclaa soo koriyo kaalay doonta badbaadada soo fuul kaalay doonta badbaadada soo fuul walaa takun maca alkaafiriin ka kaalay waddada gaalnimada ka kaalay islaamnimadii tawxiidka u kaalay muslimiintan u kaalay sida maanta da'yarta aan ugu yeedhno masaajidda een leenahay gaalnimaha ku dhicina siday waalidiintood ugu yeedhayaan maxaa yeele waalidku ilmihiisa uu jecel yahay inuu badbaadiyo rabaa inuu ilmahani guulaystuu rabaa adduunya laakiin nasiib darro dhalinyaro badan baa waxay moodaa maadaamay driver license wataan maadaamay accent englishka ku lahayn I know how to take care of myself don't tell me anything waalidiintooda waxaad moodi inay ka aqoon badan wiilkan dhaqankaas dhulkuu joogaa aabihiiyo nebiya iyo muslimiintiyo doonta saaran hirarkiiyo sunaamidiiyo ku soo dhowaanaya yaa markuu aabihii ku yidhi irkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin aabe kaalay doontan soo fuul wuxuu u jawaabay sa'aawi ilaa jabalin yacsimuni min almaa aabe nin weyn baan ahay waxba ha ii sheegin I know how to do this I got buurtaasaan fuuli waan isbadbaadin kara waa dhaqanka da'yartu maanta ay leeyihiin kuwa badan oo kale aabi muxuu ku jawaabay marka laa caasima alyawma min amlaahi aabe hawshani riwaayad ma aha cadaabka ilaahina iskama badbaadin kartid ilaa uu ilaahay badbaadiyey sidaa darteed caqliyarida iska daa garasho xumada iska daa doonta badbaadada soo fuul kaalay muslimiintan walaalaha ah ku soo bir ilaahay ku badbaadiyey ka yarkaa weli uu taagan yahay dhulka waxba ha ii sheegin doontaasaan fuuli nin weyn baanahay wax waan aqaanaa da'yartu inta badan waxay moodaan environmentiga iyo marxaladaha la wajahayo iyo fitanka lagu jiro waalidkood inay uga aqoonday ilaahay wuxuu yidhi waxaala baynahum mawt fakaana caday waxaa ku yimid hirarkii iyo sunaamidii nebi nuux calayhi salaam isagoo arkayo wiilsu gaalnimo dhig maxaan aayaddan ula jeeda aayaddan waxayna baraysaa qofka dhalinyarada ah markuu moodo waalidkiinu ka aqoon aabe waxba ii sheeg hooyo waxba